عبد الرحمن horta waxaan waa gabadh kowde waana gabadh walaashay oo ilma aan eedo wahay caloosh ku sida horta wiilkan dhakhtar buu yaalaa kowde haye ilkaha bakeeri baa lagu dhuftay labada ilkood way liiqliiqanayaan maxay tolay ayada ku dhufatay luqta way jeexan tahay lacag $3,000 bire lagu gelinaya ma fahantay wiilka dhakhtar buu jooga telefoonkana waa laga qaaday telefoon ma haysto kowdaha gabadhan iyo wiilkan iyaga isdoortay kowdaha iyaga isjeclaa anagu waan caawinay waan dhisnay wax walba loo qabtay meel bala dejiyay anigu dumarka markay uur yeeshaan qaar baa uur ku dhibaatoodo macnaha xanuunsado oo iska dhibaatoodo anigu wiilka video cameran toos ugu wacay wax liiga sheekeenayo wax ilaahayna way arkaa qofna uma eexanayo iyada saadkeedana wali ma dhageysanin laakiin ma rabo inay dambi halka iga raaco laakiin waxaan indhahayga ku arkay wiilka markaan wareysanay wuxuu dhahay horta wiilka kuwa niyuusyada dhan Kenya xalay way u tageen waan u diidnay waxaan ku niri wax aad u soo fadhiisan karta gabadha iyo wax kamera oo laga duubi karo iyo qof ku imaan iyo qof u jawaabi karta ma jirto ma fahamtay okay gabadhan iyo wiilkan walaalayaal waxay gudaha ayagu labada shakhsi markay ahaayeen ay isku qabsadeen anigu dambi ma ka sheegi karo oo ma dhigi karo wiilka saxsanaa iyada gardarro badan laakiin waxaan arkay wiilka inay gabadhu ay u dhahay markay kelmad markan qof la hadlaba intay maseerto inay xataa biyo kul ii karkariso dhahay ma fahantay wiilka walaal uu leeyahay xiniyaha wax kaga dhufatay way garaacday dhowr jeer bay dishay way qaniintay intaas oo dhan oo muu gacan qaaday markuu suuxir gabadh uur leh oo dhibaataysan maxay tolay ma rabo inaan dhibaateeyo oo kama tagi karin okay maxaa markii ku dishay gabadhan ay nabarka ugu horeysay kugu dhufatay aa uga cararweys wuxuu dhahay qof walba wuxuu leeyahay gabadhii today kaaga soo go'day reer ama kaaga soo tagtay nin ee waxaad ogaa iyo jacayl isla soo marteen miyad ka dhaqaaqaysaa waa maya okay gabadhan iyo wiilkan dhibaato wuxuu kaga maseeriyay anu ma ogin inuu ninkan dee uu gabadha intuu la sheekaystay taa anigu kuma dambaabiyo oo ilan waa nin rag anigu uma danaanin karo laakiin wiilkan gabadhan inuu ay macnaha aad ay u dhibaataysan tahay aan dareemi karaya gabadh uur leh inay tahay oo dhibaataysan then wiilka wuxuu yiri wiilkii markay hadda ugu dambeyn dhowr jeer bay dishay isna only maalintii dhaweeyay dhowr jeer bay nabar ku dhufatay hadda reerku asaga ayada dhalay waxay ku dhaheen intay gabadhani ay dhibaato kugu sameyn lahayd ama aad u dhiman lahayd dhiigaaga ma rabno inaga ka tag bay ku dhaheen ayada reerkii dhalay gabadh isaga marka adeerka Roma dhalay ayaa soo kaxaysay dhakhtarka geysay telefoonka ka qaaday ku tiri gabadha didanba uguma noqonaysid intay ka dhalayso xaaladdu ay si noqonayso gabadhii way soo hadashay Mareykan bay wacday group chat family wacday qof walba ay wacday waxay tii ninkayga inaa arkaan rabaa waxa lagu yiri ma arkaysid ninkan dhibaato badan baad ku samaysay gacan qaad badan ba ku yaala waa la idin kala badbaadinaya gabadhii waxay tii ninkayga waan jeclahay inaan arkaan rabaa markii ooyis ilaadahay wuu iga tagay daqiiqad ka hor gabadhay wacday ee Mareykanka joogtay baa aniga telefoonka isku hadal waxay ugu tiri way soo wacday waxay ugu tiri hadda ninkayga la itusinaynin waliba inay dhakhtarka tagtay damacday waxa lagu yiri no hadday wiilkan dhibaatada nabarada ku yaala waa lagu report garan hadda imada ha u imaanin isna telefoonka laga qaado mabaantay gabadhii waxay tii maadareyaal waan istilaya oo sunban cabi hadii ninkayga la tusi waayo oo markan ay sunta cabaysa marka in isaga la tuso dartiiba waxaan sameynaysaa waxay u sameeyay in ninkeeda aragto oo ay ninkeeda u tagto okay inaad marka gabadhan hadii waxbaan in weydiinaya gabadh Soomaaliyeed ba hadda ka hor nin gubay markii gabadhii la gubay shan caruur lahayd Soomaaliyeed dhan way qayliday waxay tiri Allah gabadhan iyo wiilkan imaada real wixii aynaan ogeyn oo inaan aqoon u lahayn anigu ma dhahay wiilkaas way saxsan yahay because markay isqabeen wuxuu ku sameeyay anu allahay ka alle ma ogaan karo laakiin wuxuu yiri been naftiba ii keentay sida kelmad marka dhaway controlisa telefoonkayga baadhisa markay cadhootana gacan qaad ku xir way ka soo horeysaa saas yiri ma fahantay marka in madareal gabadhan waa la hadlay waxa lagu yiri waa lagu aniga kula hadlaya dadka lacagta biilka u dirayaan ku jiray waa lagu biil waxba ma ka xumaanayaan meeshada joog ilmahaaga dhal hayso ninkan hadda admoomtiga sabrid hal idinka kala dhigo oo adiga sidii lagu badbaadiyo isna lagu badbaadiyo marka inaad Cabdiraxmaan waan ku soo wacay waad iga qaban weyday ma rabinaan public hadda aniga gabadhan waa gabadh yar oo inaad yartayga oo walaashay oo uur leh inaan ka daba hadlo ma rabin wiilkana wallahi oo billahi 25 qof aan group ku soo saarnay waxa lagu yiri adduunku xaq kale haduu ka ragmado TikTok iyo social media ma soo fadhiisan kartid
kuwa newska ayagoo telefoonka nugula jiro kuwa Kenya wariyaasha oo dhan yaa u yimaaday gabadha anaa ku nidhi no ma la hadli karaan umana sheegi karo afaarihiisa way dhakhtar buna ku jiraa ha dadka su'aalaha ku weydiinaya ha hooyo 9 bilood oo uura leh tamarta inta leega in ku dilasay sida ugu dhaawac xagee ka keentay markaa waxay ka keentay walaalo markaan anigu aan ku gacan qaadin aan ku turayo adigana aad xanaaqdad waxa ay igu dhufato gabadha waa gabadh xoog badan uur bay leedahay laakiin ani waxay rabtay kugu dhufan kartaa ilaa isaga iskama caabinayo iskama celinay uu gacan qaadayo moogtaa ma fahamtay wuxuu yiri inaad markaan dadkii inta waxaan u dhiman yidhay qaniyada halka qadaadka kaga taalo way sababtan aad wax dhan ugu adkaysatay wuxuu yiri maanta dhan daqiiqad wuxuu yiri markay ay wax ugu dhufato next minute way barooranaysaa xileeda hayga tagi midda labaad anigu dhahay gabadhan macnaha waxaan isla soo maray dhibaato iyo intii oo dhan ayaan xurmeynayay intaas oo dhan ummadda dhan waxay leedahay faamiligeedaan ku dhahay axadii way la soo hadleen wiilka waa uu noo yimaadeen waxay dhaheen gabadhan wiilkan hala kala badbaadiyo iyadoon xumaan jirin adeeryaal oon xataa la dhihin gabadh fur gabadhan waa xaamilo ma u furi karo wax xumaana laguma sameynayo guri bay joogtay gurigeeda uu nabad qabaa lacag waa la siinaya wax walba anagu ma nihin dadka walaalayaal dadka maaragtay xagxagta welina anigu waan ka dhimanayaa gabadh Soomaaliyeed inay intay public soo fadhiisato ay dhahdo maanta isdilaya gabadhan waan ka aad ba ii dhibaysaa ma fahanteen inay gabadh kale ku qabatay iyadu ay ku aragtay ku qabatay ariga ma maqashay taas inaad isagu waa bil aadan haday gabadh kale ku qabatay on ku dhaho today war ma gabadh kale lagu qabtay heede isagu wuxuu dhayaa waxba la iguma qabanin soo anigu taas anigu marnaba taas anigu ma dhaxgelayo laakiin hadda xaaladda ay gabadhan ku jirto wiilkan iyo gabadhan in la kala badbaadiyo oo hadda at the momentigan la kala saaro heede ayaa walaal iyo muhiimadu tahay ما فهمتين قبل ما كان عندي نينكيجي إلا وأنا أركو وإن اللي يجي وأنا أركو نوبل ده أنت أي صنت وعب سواء أنت المدرية يو يجتكي محوتك دكتور بيالاي واي هذا مركب واحد لا هاي إسقدر تيسا ولا كلنتو وهاوشان سدان هاوسا مسيبات لا gabadhani masayrka wixii koos garay fiir Cabdiraxmaan walaal waxay ku qabatay iyo waxay ku ogeed walaal anigu ma ogi oo ma dhigi karo wiilkan uu saxsan yahay waxa may ku qabanin uu ka masiri taas ilaahay baa og anigu bil aadan banahay waan ogahay every story they have a side story kasta sidekeeda leedahay ma fahamtay adiga degan inaad su'aashan ku weydiinay waxa weeye adiga nin baa ku qaba ka soo qaad ninka oo guriga kula joogo waxba kuugu sameyn miyaad iska dilaysaa markaa may qofnimo dilayo laakiin maxaa keenay fiiri imisa nin naag ku qabatay imisa nin naag oo ka maseeriye imisa naag la guursaday daa walaal dilku solution ma aha maya maxaa keeni kara lacala hadii aan taaba ku keeni kara naag buu shukaansaday boqol baa dhacday boqol nin baa naagooda markay ay uur yeelato heede naaga shukaansadoo raaca macnaheedu ma aha inay wiilka xiniyaha ku dhagto inay qaniinto inay macnaha ay jabiso lugta kaga dhafato bir taas walaal ma aha solution waxa weeyaan wuu ku xumeeyay isaga ku xumeeyay adoo uur u leh oo xaaskiisa ah umadu way kula arki waa caad si cad banaankaas yad ka mari kartaa ma fahamtay waxaad u soo dhex public hadda inta soo fardhi kartaa way bi xumay laakiin inaad in la istilo oo intii la istilo 1 minute ka bacdina ay dhahdo maxaa sheekadani way gabadhii sidii in ay dhahdo wasdilaya hadda muhiimadu waxa weeyaan gabadhan inayna asagana walaalo intii hadda admoontiin lagu soo celiyo ay wax ku dhufanin kale oo oo wiilkan dhiigeeda in ku gelin iyaduna ayna sun cabin marka ilma adeeryaal hadda wiilka telefoonka waan ka qaadnay wuuna ku baxbaxsanayaa social media inuu fiirsado hadda wiilkii dhakhtar yaala oo isbatiis yaala oo gabadhiisa isjeclaayeen iyo familigiisa problem ku dhacay masaxba 150 qof intay daaqad soo qabsadaan waxayna ogeyn inay maanta dhan falanqeeyaan bigada aniga waxa ay gubaya ma aha inuu aniga familygayga yes waa familygayga ayadana waa familygayga gabadha aniga qabiil ahaan qaraabaan nahay ma fahamtay habaryar baan u ahay ha u malayn inaan aniga ninka xigsanayo ma fahamtay laakiin 150 wax oonan aan dadku ogeyn هذا يا ضد ما هالكن سكفلن قيني وحين أوجين أنا ويلك كاميرا دم كوار كان كلها هاي نبرد كويا اللي واحد كويا قيامها أنا وين هذا ولا يسوي تاجية
يوم القيامة isagu ma kuu sheegay sababtay gacanta ugu qaaday mise way iska keedishin buu ku maya wuxuu yiri nooc min al-control ma fahantay laag ma hadli karo qof wuxuu yiri lixdanka waxay leedahay waa iga tagaysaa naag badan guursanaysaa naag badan waxaan laakiin anigu still garasho isaga taa ma ku siinayo because anigu ay ma ogaan karo runta saxda ah ee labadooda markay guriga ku jiraan iyo gabadhaasi waxa ay aragtay anigu ma ogaan karo ma maqlaysaa way laakiin hadda problem gabadhan xalay sootii lahayd ilkahay ka daadisay waxbay ku dhufatay garaafa lug baa jirta haddana waxaa lagu liqliqanayaa labadaas ismaale warkaas ismaale labada ilkood saasay u saaran yihiin waxba saas waa laga soo ridayaa waxba ma way ka soo dhaceen adigu degan xalay laakiin waxaad na tiri lug baa ka jabtay baad na tiri lug bay ka jabisay lugkowde hadda lugkowde ana markii hore dee hadal baa la ii sheegay laakiin hadda wiilkii waan soo arkay inaad ilaan waxaan indhayga ku arkay hadda kuu sheegaya ma maqlaysaa way ilkaha waa run labada ilkood wiilka ma saarna ilkuu u baahan yahay in loo geliyo wuxuu u baahan yahay in lugtaas way dilaacday bir baa la gelinayaa waxaasoo dhan waxaa usii dheer dee dhibaatada iyo emotional iyo wax walba problemka iyo isaga dhakhtar jiifo oon kici karin xataa xiniyaha nabaraa kaga yaala ma fahantay oo waxbay ku dhufatay wiilkii dhakhtarka kaadida minimid baa la qaadaya marka sidee marka qof saas ah hadda sheekadan falanqayn anigu waxaan idin diidanahayba maadaama sheekadan ay xasaasi tahay at the momentigan dad badanoo waxba ogeyno iska daaya ilmada real qiyaamaha waa idinsoo istajin doonaa gabadha anigu waxa lagu sameeyey ma ogi mana oga yeelinaya gabadha aniga habreer baanu ah isaga iyo iyadaba sidekan iyo sidekanba familigayga wayaan ma fahanteen laakiin ilmada real gabadhaas arrinkeedan waa sidaa saasay u dhacday hadda waxa ay tiri aan isku dilayana markii lagu laguma tusinaya sababta lagu yiri laguma tusinayna in adeer waxa weeyaan iyadu say tahay iska dhaafilku naga horanta iyada ma ka horeysa xaaladeeda way fiican tahay she's okay waxba ma qabto dhakhtarkay joogtaa way u fiicneed in dhakhtar la geeyo because qof 9 bilood ah in adeer inuu maxay tolay u dhibaato intee ay guri sii joogto oo dhibaato uma fiicneen marka xaaladeeda hadda waa satal walaal gabadhan anaka dhalay waa walaashay waa la caawin wax kasta u baahan tahay xataa sheekadii oo gabadh uurle oo la furi karin ayay waxay leedahay ninkii warqadda laga soo qaado $5,000 meherkiina hala keeno horta gabadhan ha dhasho waa la furi furitaankeedii wax walbano in adeer waa la siin yaa le halay furo iyadii baa dhahaysay goorma hadda dhahaya way jeceshahay ninkeeda labada hadal ay dhahaysa weeyaan marna waxay leedahay degan in adeero hayna waalid marna waxaad leedahay ninkeeday jeceshahay marna waxaad leedahay halay furo bay leedahay ninka dhagaysto ninka markay dishay shifiil galti ninkayga inaa arkaan rabaa bay leedahay ma fahantay marna waxay leedahay $5,000 iyo warqadeeda ha laga siiyo labadaaba iyadaa isku garab wada heerkoodina waxay dhaheen gabadhan wiilkan xaaladda hadday ku jiraan ha la kala badbaadiyo ha la kala furo qofna ma dhihin ma fahantay labada familiba ha la kala ilaaliyo gabadhan wiilkan yana u tagin inta ay ka dhalayso inta xaaladeeda okay ka noqonayso ma rabno in meeshaas dhiig gabadhaas wiilka dhiig ku gasho ama isagu ku galo ma maqlaysiin hadalkaygana waxba ha munaafaqadeynina ilaahay ka baqa yawmal qiyaamaha waa idin soo istaajinaya ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa degan ma ninkaad isku reertiin marka meelmaadeer baad ninka iyada hooyadeed baa aniga ay xigta ma fahantay isagana family koraan nahay labadaba familkayga weeyaan xagga maraxaankana family baan ka nahay xagga ogaadeenkana family baan ka nahana way labadaba aniga way siman yihiin laakiin waxaan anu diidaya ma idin sheegaa waxaan dadkan aan waxba ogeyn intay lixdanka soo hadlayaan wax iska sheegaya wiilkana uma soo fadhiisanayo TikTok intuu soo fadhiisto dhimaaya namarkan ay ugu dhufatay kana ay ugu samaysay xaraan caleeg anaga nasiisaan anaga wax ka sheeg aniga inaad ridaji wallahi oo billahi adxaano adarta information fahmaysa gabadhaada bar ku barbaari wax la dhaho jacayl ma jiro ayadoon xalaal la isku naqanin waalidkaa ninkay kuu keena nin kaa wanaagsanna weligaa ma helaysa haddaa kuu sheegaya gabdhaheenna waagii waalidkood u doori jireen lama dhibaatayn jirin owlaad loogama tegi jirin lama furi jirin hooyo meelaha balanbalaysa lama arki jirin ninkii la siiyo sharaftii lagu siiyaa looga qaadi jiray soo gabdhihiinna waxaa ku barbaarisaan gabaray ma rabtaa guur sharaftiisa ma rabtaa guur ixtiraamkiisa ma rabtaa ninkan inuu bannaanka kaa maro ma rabtaa ninkan inuusan ku bahdirin gabar xirada reerkeeda ku jirta noqo gabar reerkeeda ka dambaysa noqo gabar aabbaheed iyo walaalkeed dhabarkiisa ku jirta noqo haddaa laakiin bannaanka isdhigto raqiis iska dhigto nin walba hoos gasho oo mid walba naaskaaga iyo baridaada taabto
oo waa ku jeclahay been uu ku sheegay dayuus walbo berita bartaana ku soo oonaysaa sunbaa cabay kan baa dhahaysaa xubbiga rasmiga wuxuu imaadaa marka lagu guursado ninka ragga arag gabdhaha waxay mataqaanaa ay u raadinaan excuse way isjeclaayeenoo way ka tagto ninka kalaa wax loo gudo ninka ugu dayuusan zaaniga ugu xun haddaa maalin la hadasho adoo ninku qabo agtiisa waa ka dhimatay hadduu ku guursado xataa shaki iyo wuxuu kugula noolaanayaa sidii shalay ayadoo la qabay ay kuu shukaansateen nin kalena u shukaansanaysaa sida shalay ayadoo la qabay ay kula sheekaysteen nin kale u sheekaysanaysaa gabdhow runta laydinma sheego ninka adigoo lagu qabo kuu qoslay u qosashay ee raba berrita waa dayuus berritana ma aragtay wuxuu rabaa inuu kugu bahdilo qaar baa ku dhihi doona adoo dhillaan ku guursaday haddaan kuu sheegaa oo shalay adoo lagu qabaa ila sheekaysatay soo haddaa runta rabtaan gabdhow runta haddaa rabtaan oo ilaahay subxaana wa tacaala waddadii runta aad rabtaan ninka xalaasha kuula imaado waalidkaa kuula tago ee jirkaaga iska ilaaliya kaa guurso haddaa kuu sheega waayo maanta dhan waxaa leeyahay sun bay cabta kana yeeshay aabbayaashana mas-uuliyad baa saaran gabdhihiinna guriga intay idiin joogaan bara aabbow ninka ku rabo ee xalaasha kuu rabo ee raba inaad marwo u naqato ee raba inuu kugu faano ee raba inaad ubadkiisa hooyadiis naqato waa ninka intuusan mataqaanaa wax walbo uusan ku dhihin intuu baxo waalidka intuu u tago dhaho aabba macaan mataqaanaa gabadhaadaan rabaa hooye macaan gabadhaadaan rabaa oo ehelkaada kaa soo maro laakiin sun bay cabtay kan bay yeeshay intay yeeshay waxyaabaha oo dhan waa maalaa yacni laysmana jeclaado ayadoon laysku dhiidhiimin laysku dhareerin sariir laysla korin xalaal laysku taaban laysma jeclaado ninka bannaankaasaa layska maraaya waa laysku danaysanayaa waa laysku dul soconayaa wabilaahi towfiiq hadda hadalkan aan dhahaayo selfish oo dhan maxaa la dhahaa ii sheeg dayuus oo dhan mataqaanaa ii sheeg waladulfiraash oo dhan wuu dhibaaya waayo wuxuu rabaa inuu gabdhaha islaameed bannaanka ku hayaysuu rabaa laakiin ninka rasmiga ee xalaasha gabadha hooyadeedu ka doonanaya aabbaheedu ka doonanaya reerkeedu u tagaya jaceelna ma jiro ayadoon laisguursanin bilaahi towfiiq waalidow gabdhihiinna waxaa bartaan wax jacayla inuusan jirin ayadoon xalaal laysku naqanin wax jacayla inuusan jirin ayadoon laysoo doonanin wax jacayla ayadoon inuusan jirin ayadoon ilaahay la raalli garaynin qof baa arag guri xalaal baa wuxuu u soo duminayaa hebel baan jeclaayo kana ilaahay buu ka caraysiinayaa markaasu wuxuu rabaa inuu nolol mataqaanaa ii sheeg inuu ku noolaado nolol maxaa la dhahay sheeg wanaagsan inuu ku noolaado riixa jannada ma urisaa la dhahay gabadha maalaa yacni u dalbata furiin nin baan isjeclaan jirnoo israbi jirnay laa mataqaanaa ii sheeg wax maxabba ah mataqaanaa ama xubbi ah ama ma jirto ka hor wallahi inuusan jirin ma jiri doonto soo waxaa rabnaa gabdhaheena maanta bannaankaa laga wadanaayo nin aanan mataqaanaa nikaax ugu dhicin wuxuu rabo uu ku samaynayo nin mataqaanaa ii sheeg aanan rabin uu ku danmarayo maanta waajib baana saaran asa waalid gabadhaada guriga ku bar ninka ku rabo waa inuu kuu soo gogol fadhiistaa waa inuu aabbaha arag hadda carabtoo kale fiiri waa dad muslima deris baan ay nala yihiin ninka markuu gabadha rabo uu arko quduubuu samaynaya waalidkeedu u tagayaa gabadhaada ma shukaansan karaa gabadhaadaan u baahanahay gabadhaadaan rabaa marka waa lagu og yahay ninka marka waalidka og yihiin xumaan ma samayn karo wax xumaana ma samayn karo laakiin ninka ku dhahayo arag abbaayo xoogaa shaqaan wadaayo waxaan rabaa xoogaa inay wax noo aruurto waxaan rabaa arooskaaga inuu cawaalo aadan ka heeso waa iskhudbasiraysanaynaa micnaha aan kaa zinaystaa laguu qurxiyey aan bannaanka kugu fuulo aa laguu qurxiyey adna waa oggolaatay gabaray haddaa bannaanka isdhigto bannaankaa lagaaga dhammaysanaa haddaa issharaftaneh waa lagu sharfaa oo guriga aabbaha iyo hooyadaabaa sharaf lagaaga wadaa berritane sharaf baa lagugu soo celinaya ama sharaf baa lagugu dhaqaaya assalamu calaykum waraxmatullahi barakaatu aad iyo aad maahiro wax kala dilowday iminka yaaba sawtan baal snapchat-ki baa la tagaabay oo iyaduna waa kuu soo sawiraysa adiguna waad u sawiraysaa dhac waa iminka yaa istaataabtaba halkaas unbaa bal dee layska tusaabay sawtan iminka wixii baa sawir lagala daalay maada waxba og ahayn baa foolxumadiisa inaan aragna nacnay ma sawir baan la sii aadi karnaa annagii baa foolxumadiisa aragtidiisa waa iska qarinaa nalalka damiya xataa marka la qubaysanaya hadda nalalka waa sii jeedinaa markaasaa kaamira anigo ilaaha laga cabsado yaa subxaanaka yaa calim aad iyo aad waay حمدة سودو وين هذا؟ هنا القناة وندو الصباح وناكسن ورد السلام يا دمانتنا أصحابته. وناكسن سودو. قبلنا قروح بدل لما أنت حالة أنت عبتها من لما ما تبقى صار مانتها. قبلنا أنا صوب عبتير كان نكنا قبل شري باللي مركا قبل دي دسقال بلوضو أورو ويلاي مركا أور عبي سحالة سنتها. أنا رحت حالة ما فيديو شارك كودي.
laakiin gabadhan waa gabadh qeyr mas'uul iyadoo hooya oo ilmaheedu curad baa ilmuhu ilmihii curad buu ahaa iyadoo ilmaheedii curada ilaahay dunida ku siiyey maanta farxadeedii koobaad uurka ku sitay gabadha sunna cabtay nin dartii ilmahaaga iyo ninka ilmahaagi baa qaalisan marka inay ilmaheedii koobaad farxadeedii ilaahay ku rasaaqay oo waxaan ku isku baroobeynaysa calooshiisa yaa qalinay inay maanta sunna cabto walaal may fiicnayn gabadha runtii walaal aad baan uga xanaaqay suufiyadeeda waa la soo sheergalay xalay toon waan arkay inay nafteeda dhan nin yaro bini aadan oo ay u goyso wallahi wax fiican maaha ma aragtay runtii aad baan uga xumaaday waxyaabaha soo kalena dee in habluhu Soomaaliyeed ku dhaqmaan amba ay sun iyo waxyaabaha soo qaataan ee cabaan wax fiican maaha ninka hadii laga dhacay dee oo ninku ku ixtiraamo adigoo xaamil oo naag kala raacay maxaad sun ugu cabin dantaada ku gaar hadaan iska furayn maalinta dantaada ay markii hore isku guursadeen baa qaldanay gabadhan waxa la yiri markii hore iyaga sheekaysan jiray kadib gabadha familkeeda nin kale ku daray haye iyadoo la sii qabo oo nin kale lagu daray haddana shukaansigii bay la sii waday yarka hadana way soo noqotay hadana soo laabataa shukaansigii ninkii way ka soo baxsato ninkan ay ku soo noqotay marka meel qaldan bay markii hore bay ka soo bilowday wallahi horta markii hore dee nin aan rabin inay guursato guur aan ku habbiyayna ku degdegtan maan iyadoo nin xiriir la oo nin jecel familka ku qasbay baa la yiri laakiin dee inay iska soo furtay ahayd iyadoo la qabayna dee shukaansata qalad baa ma iyadoo la qabayna shukaasata qalad baa ahayd hadda marka ma naag buura amse naag baaro sabaleedu Kenya waxa la leeyahay gabdhihii baa madrasa waa iska gabdhaha buuxaba la leeyahay dee uu iljabiyay qaar buu malaha waxba ka shakada Kenya waa meel waalan gabadha Kenya soo ku cabtay Kenya labadaba joogan xamday gabadh bay ku aragtay walaalo walaal ma Kenya waa meel waalan dadku sunniya way istilaana way cabaane Kenya joogan labadaba mar hadday gabadhu Kenya joogto falqadeeda waaba ka baxay baa aniga bisinka dadka Kenya jooga madeena maaha horaan uga baxay maxkamada ma hadlaa talab sacid bay horeysay ما على أوجودي محكمة ما يوجي مسز سيداس هذا ذو ولا الوين سلامة يا هرت الدمانتين محكمة أدينا ولا لون سلامة يا هرت قصة قبل دني ويل كلي ميديا ترند بري دوي تولي كهاد وأنا لا وده السعودية قبل دني سيديني كديسكو أروسين خاصة إن كان ينتهي هرت فيرستيج واحد يسكو برتين ضد كي دان تضع مركا عرقتي أروسية الله غيره ضد كعياري هانشرين وجروب بيكتر سناية لبضبا I think جروب كولي من يسوي إنه معمول كهابا في ليا واي لبضو دان تضع بجروب كابي كعياري تشرين كدي بهالكابو حديد كوكو تعالي إنه لشودو كبلامته واي kadib sidii u socotay adigu markuu dagaalkooga iyo buuqooda iyo wuxuu batay oo de familiyana la isku ogaaday baa waxa dhacday gabadhan reerkooga wiil ku dareen wiilkii marka lagu daray muqdisho loo diray Kenya ku dib ugu soo laabatay ayadoon marka wiilkii iska furin una sheegin wiilkii ina waalidkeeda cid ku dareen bay horta wiilkii isku soo laabteen ay wada hadleen kadib waxay ku tiri walaalo aniga waa lay qabaa ninkiina ifur baan dhahayaa ninkiina wuxuu dhahay haddaad rabtid inaan kuma furayo haddaad rabtid shardi wuxuu uga dhigay inaan ku furo yacni dee lacagtii aan kaa bixiyey ken because of the gabadhaydii baa tahay waan ku guursaday wax dhibaygama sheeganaysid dee waxaan kugu furaa ma jirto kadib isaga walaashii ayaa lacagtii ka bixisay isaga walaashii baa lacagta bixin doonta تيم هيركا familigooga isku soo ururiyay walaashii marka xiriirka jacaylkooga iyo wuxuu la socotay baa lacagtii bixisay kadib waa kuwii si dib Ridwaan Isaaq bay dib iskugu yimaadeen waa la heshiisiyay gabadhan iyo wiilkan halkuu xiriirkooga jacaylku ka bilaabmay 14 bishii February buu arooskoodu Nairobi ka dhacay sanadkan waay maalintii bay lahaayeen 14 February baan la sugaynaa arooskayga isla habeenka buuna arooskoodu dhacay uurka 9 bilood sootan way dhalaysaa labaha February-dii iyo maxaa sidee u jiraa dib u baara 14 February buu dhacay arooskoodu I think marka ma wax yar ka horna ma laakiin arooska habeenkii aqalgeynta gabadha 14 February buu dhacay
عادي هدي كوباد اسكورسدين او 9 بلاد way yeelan kartaa bish 9 baa lagu jiraa waa caadi bishii labaad iyadoo xalay toolay waxay idin tiri imikan bishii 9aad gali rabaa ha ma waa caadi dhima laha way dhali kartaa bishii sadii koobaad la guursaday dee uu bilis waa goormay 13 iskuursadeen dadkan macawaan baa ardo soo eega miidiyaha ilaa arooska ka hor si wada seexdeen oo meherku ka horeeyay waa anaga ogeeyna hadda 14 February buu dhacay arooskoodii way حتى بحالكيبا u imiday dayaxdal nuursha u imiday oo bariga u ballan qaaday inuu arooskooda ka heesi doono way oo Nairobi ugu yimi xamar intuu ka soo duulay Nairobi arooskooda ugu yimi halka February way halka February baan ku qoreen oo bishii labaad 14keedii imikana waa bishii tobnaad waxa weey waa 8 bil baa dheer 9 bilood bay oo bil 9 bay waa bil ka horba marka subhanaka ya cadi waxa xisaabta soo gelayaa tiri laakiin waan gelayaa bay ku tireen waan gelayaa arooskooda xilliga hamiyada ka horeeyay maxkamadda hadda bilahan gaalada kuma dhalaan bilahan guuga ku dhalaa dumarku guuga saan u malaynayo may xamday walaalo meherku waxbuu ka horeeyay laakiin anigu arooskii baan ogaa exactly taariikhda meherku dhacday ma ogi oo ma xasuusto laakiin meherku 14 February waa caadi dhibaato male waa bishan caadiga ah adigu anyway inan kan iyo gabadhani sidii way isku arooseen inantani guri bay degeen miidiyaha soo fadhiisan jireen habeenada qaarkood dadkii live ka daawanayay way daawadeen waxa jirtay habeen labadooda intay live wada fadhiyaan kamarada u furan tahay baa gabadhan comment lagu soo caayay way ayadna way caydii bay celisay way maagay sidee dadkayga u caayaysaa buu kuri yaa awood ku siiyayna dadkayga caydid dadka la caayaya marka waa kuwee gabadhan eeg imika adigu live ka ma ku jirtaa comment dad baa wax kuu soo qorqoraya soo maaha way qofka wax kuu soo qora ama waa ignore gareyn kartaa ama jawaabtiisa siin kartaa way inantan iyo inankan labadooda live kamaraday hor fadhiyaan way mar alaalihi markay hor fadhiyaan kamarada baa waxa dhacday inantana commentiga lagu soo caayay marka dadka commentiga ku soo caayay dadka commentiga caayay kadib jawaabtii bay bixisay isaguna garab fadhiyaya sida dadkayga u caayaysaa buu kuri yaa kuri yaa awood ku siiyayna dadkayga caydida aniga because of meeshan life-kaygii baa lagu jiraa buu waa ciwaankaygii marka dadka ka wanaagsan xaaskiisa uga wanaagsan marka isaga waxa halka inooga cadi gabadhani commentiga hadda fahmay ku soco inantani xaaskiisa inaan ninka u xayiran bay heed oo aad arkaysid gabadhina pressure lagu haysta gabadhina la jujuuba gabadhi in xorriyadii xataa awal habla asxaabay lahayd dad qof bulshada iskaga dhex jirtay heed inantan maalintii la guursaday qol guri yarun bay ku jujuubneed miidiyaha markay soo gasho isaga kaliya taa la soo galaysa shaashaday ka baxda oo labtam laakiin anigu mid baa taala anigu qaladka weyn ee nolosha inantan saaraya sababahan u saaraya waxay tahay walaalo naftayda haddaan anigu jeclaan waayo cid ima jeclaanayso naftayda haddaan tixgelin waayo ixtiraami waayo qiimaha iyo martabaday leedahay aan istaajin waayo insaan kama sugayo inuu istaajiyo waxana waad aragtaa waa nin yaroo kurayo iska foodlaya siduu doona gabadha ugu ciyaaraya ragga xilligan markay yihiin ma mid aqli la mooyaane xilligan oo kale nin mas-uuli ma noqdo waa adiga arkaysaba waxyaalahu ku dhaqmayo gabadha imika sun bay cabtay hadda xaaladeedu sidee tahay horta anigu qalanka Soomaaliya waxaan arkayay snaabka soo dhigto le xaaladeedu way fiican tahay waan wada hadalnay koolkay ku wada hadleenna screenshot ka soo qaaday way gabadh uur leh oo waliba 9 bilood hadda xilli culus ku jirta wax yaroo fudud kale sunta uma cabin wax weyn baa jira exactly waaniga kule waxa jirta horta maxkamadda walaalo ama wax yar ha cabto ama wax weyn ha cabto yani naftaadu xilli mays u noqotay inay jiib nolosha meeshii ugu dambeysay nin sideed iskugu dili kartaa iimaankaagu sidoo daciif u yahay miyaanad qof tukatahay maanad qof alla ka cabsi lahayn miyaanad isweydiinin cadaabinay ku sugayso waay noloshaada aad u beer dareenaysaa nin yar shalay 3 baa kuu keentay 3dii baa kaa gaxeen kartod noloshii shalay ku mariyay 3 jibaarkeeda quruxaad samaysan kartaa dumarka cadifada ku badan maadaama ay gabadh tahay
saw lagama yaabo ninkan wixii ay u soo qabatay isaga dartii iyo dhibaatada ay u soo martay iyo waalidkii uga soo goday waxyaabaha inay oo shaydaankuna u sheekeeyay soo ma dhici karto ee gocatay walaalo waxyaabaha iyo ka badan baa dhaca maxkamadda ma inaan reason u raadinaba nolosha horta markaste maya dee qofku markuu uurka leeyahay imika uur ma lihid waxa laga yaabaa in is qabato laakiin qofku markuu uurka leeyahay inuu depression ku dhacay baa laga yaabaa waa 9 bilood waa hooyo 9 bilood walaalo horta eeg maxkamadda idinku rag baa tihiin marxaladaha uurku waa marxaladaha dumarka aad loogu naxariisto way ixtiraamka la siiyo waa marxaladaha xanuun kasta u nugul yihiin welibana khaasatan xilligan waa xilligay culayska ay tahay iyada la rababa ina fadhiga wax loogu keeno hadday awoodoodaba tahay oo aad hooyada loo xanaaneeyo laakiin qofkii ku xanaaneynayay ee ku daryeelayay ee waa kan badee aad arkaysid noloshu kugula jiro marka adigu inaad naftaada gabadhnimo u tashato weeyaan waxaa jirta walaalo intan yada lagu sameeyey boqol ka xun inta gabdha lagu sameeyey oo ubad welibana inta lagu dayacay aanan maanta meel allaaliya meelay ka shaqaysatahayn waxaa laga yaabaa 5 caruur 6 caruuro biyo oo sabiya oo ciday kaga tagta ay haysan inta lagu dayacay intay hooyooyinkaasi dhexda xidheen ay noloshooda quruxdooda soo saareen ay ubadkoogiina tarbiyad wanaagsan iyo akhlaaq tii ugu dambeysay ku koriyeen marka inantani anigu mar kasta waxaan qalad ka saaraya dumar ahaan inagu inaga nafteena jiib ka dhignay guurku wuu jiraa waan guursan karayaa laakiin qofku markuu noloshii ii garan waaye aan arko qofkan inuu noloshaydii ku dheeldheelayo anigu waa inaan hore u dhaqaaqa noloshaydii wataa waa run qof aan qiimahaaga garanaya qiimahaaga ha u dilin dumarow qof aan maya ta kale maxkamadda ereygan kaga sii baxaya waxay tahay walaalo adigu markaad qiimahaaga garan weydid ood isshirf weydid iskaraameyn weydid ood qofkan inaad qiimo leedahay aad tusi weydid isagu qiimo kuma siinayo hoy gabadhay ogow intaan baan kaga baxaya walaal waa mahadsantay intaad jaaniskiisaysay maasha allah maxaa qofka hadlaya aad iyo ayay hadda dhan baan sugaye hadal waaya